waxaan dhammaanteen ku wada faraxsannahay in maanta aan dhalinyaradii gacantooda gelino xarunta Inji Center oo ah xarun dhalinyaro isla markaasna dhalinyarada ay ka heli karaan wax kasto ay u baahan yihiin oo ah haddii ahaan lahayd cafeteriadii haddii ahaan lahayd xarumihii jiimka buulka playstation wax kasto ay isleenahay dhalinyaradu way ka faa'iideysan karaan iyo iskuulkii ama xaruntii ay wax ku barnaayeen oo ah technicalkii sida inay ku bartaan ICT-gii iyo xifradii kala duwanaa sidoo agaasimaha guud ka dhawaajiyay maskaxda waxay ku jirtaa dhalinyarada meesha fadhida wax kasta soo barboos gareysaan ama hadal kasta idinka imaada anaga wuxuu noo yahay muhiim waana qodobeysanayna waxaana jecelnahay insha Allah ta'ala intaan qaadano aan ka dhigno fikrad aan ku duulno laakiin haddii dhalinyarada aysan lahayn xarun ay soo imaadaan waxa waaye meel oo maskaxda lagu tuujiyo ma helaayo maanta marka waxaan u fadhinaa inaan xaruntan quruxda badan aan furno xaruntan inta meel aan soo sheegnay dhammaan waa wada free marka laga reebo facilitation costiga iyo qiimaha yar oo ku baxay taasna waxaan sameyn doonaa insha Allah ta'ala ama aan kala hadli doonaa tiimka gacanta ku hayo in discount fiican laga sameeyo waxaa laga soo wada dhawaajiyay xaruntan inay noqoto meel isku barto oo ah xarun ay dhalinyarada dhan u imaadaan isla markaasna ay ka shaqeeyaan nabadgelyadeeda ayagana waxyaabaha kale ugu faa'iideystaan ee horumarineed xarunta hadda waxaa ka baxda barnaamij ICT gelinka hore ah taa naftirkeeda waa tiimka ka codsan doonaa in gelinka hore kaliya aan lagu koobin gelin dambena la helo sababtoo ah dhalinyarada waxay soo jirtaa qayb gelinka hore jaanisaya iyo qayb gelinka dambe jaanisaya tusaale ahaan dhalinyarada iskuulada ee foorada ilaa iyo standard 8 inta u dhaxaysa muhiim waxa u ah inay ICT bartaan gelinka hore haddii ay iskuulada dhiganayaan maybe inay jaanis heli karaan galabihii marka injineerka iyo tiimkiisa waxaan leenahay dhalinyaradaas fursad kale loo fiiriyo waa qodob xifradaha faa'iido ay leedahay waa in qofkii uu u fikiro wax uu ku soo saaran lahaa waayada dambe waxaa nagu badatay in dhalinyaradii ayagoo jaamiciyad ah weli ay ka cawdaan shaqo la'aan taa waxaa keenaysa qofkii kaliya wuxuu ka fikiray inuu learning systemkaas uu dhameeyo laakiin kama fikirin sidee wax ku soo saar lahayd macnaheedu xirfad gooni ah uu ku yara takhasusay ama isleeyahay waxa ku soo saaran kartaa weli muusan ka fikirin marka xaruntan waxay faa'iideynaysaa in dhalinyaradaas ay ku jirto hal abuurka leh qaabkii ugu faa'iideysan lahaayeen in macallimiintii iyo dhalinyarada kale ee isku eeniga yihiin ay kaga faa'iideystaan haddii isku imaadaan more than 2 iyo 3 in ka badan dhalinyaro ah markaas waxaa fiican inay ku fikiraan xagga fiican marka centerkan marka haddii la isugu imaado waxaan is leeyahay dhalinyarada waxay ka fikiri doonaan inay soo saartaan business balan ayagu gooni ah kadibna haddii wasaaradda maadaama ay wasaaradda dhalinyaro tahay in badan waxay ka fikiri doontaa tayeenta dhalinyarada shaqo abuurkooda iyo waxbaritaanka xagga technicalka marka waa mahadsantihiin insha Allah ta'ala barnaamijku inoo furan yahay centerku inoo furan yahay والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته